soo dhawaada asxaabta Wasan Official. Maxaa maankaaga ku soo dhacaya marka aad maqasho ereyga soohdin ama xuduud? dabcan qof walba waxa uu sawirmaya inay tahay meel leh muuqaal rasmi ah ee custom dal, meel aad ku arkayso wakiilada xadka iyo booliska oo wata iyo aad u tababaran. waxa hubaal ah in aan dhammaan xuduudaha adduunka la xakameyn oo aanay isku mid ahayn. haddaba daawade, waxaan halkan kuugu soo gudbinaynaa 7 ka mid ah xuduudaha caalamka kuwa oo aan caqligaaga galayn. inta aanan u guda galin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan channelka subscribe saar oo nagu soo biir. dhammaantiin waan idin mahadcelinaynaa sida aad noogu xirantiin. waa mahadsantiin. xadka dalalka Brazil, Paraguay iyo Argentina. bal ka waran haddii aad ka soo gudubto xad aan laba dal ka dhaxayn balse 3 dal oo wada jira kala qaybiya. meeshan oo loo yaqaano saddexadka waxay ku taalaa barta ay ku kulmaan webiyada Iguazu iyo Paraná ee xadka Brazil, Paraguay iyo Argentina. isla goobtan oo ah xadka ka dhaxeeya 3 dal, waxaa mid waliba uu ka dhisay taalo uu ku xardhay midabka calankiisa. bartaan oo ah soodin caan ku ah dadka dalxiisayaasha kuwaas oo u soo tamashlayn taga. 2 dalalka Poland iyo Ukraine. soodinta u dhaxaysa dalalka Poland iyo Ukraine ma ahan xariiqin fudud oo kala qaybisa 2 dal, balse waa shaqo faneed. waayo haddii aad eegto dhulka ku yaala xadka u dhaxeeya dalalka Poland iyo Ukraine, waxaad arkaysaa sawir 2 kalluun oo waaweyn oo la sameeyay iyadoo la adeegsanayo dhir kala duwan. run ahaantii waana hal abuur aan la rumaysan karin, waxaana sameeyay farshaxan u dhashay dalka Poland. 3 dalalka Holland iyo Belgium. daawadayaal, xuduudani waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu jahwareerka badan adduunka oo dhan. bartamaha magaalada Baarle-Hertog oo hadda loo yaqaano Baarle-Nazowa, dhibaatadu waxay tahay in wax u muuqda hal magaalo ay dhab ahaantii leeyihiin meelo cayiman oo Belgium ah iyo kuwa kale oo Holland ah. arrinkan oo ka dhigan in muwaadiniinta degan magaaladan ay maalin kasta dhowr jeer dalkooda dibadda uga baxaan. waxaa arkaysaa guryo, dukaamo, madaaxif iyo xataa wadooyin ka wada dhexeeya 2 dal. balse daawade, qofka degani kama uu walwalo inuu si kama ah uga gudbo xadka dalkiisa, waayo waxaa dhulka ku sawiran istilaabooyin waaweyn oo cadcad oo muujinaya magaca dal walba iyo dhanka uu xigo. 4 xadka Brazil iyo Argentina. aynu dib ugu noqono meeshii aan in yar ka hor joognay. soodintan ayaa ah tan ugu quruxda badan caalamka, maxaa yeelay waxaa ku yaala oo aad ku arkaysaa biyo dhaca ugu weyn dhulka aan ku noolnahay, kuwa oo ka soo daadanaya hareeraha webiga Iguazu. biyo dhacaas oo ah mid ka mid ah cajaa'ibta caalamka oo aan indhaha u ka daalayn daawashadiisa. dhererkiisu wuxuu gaarayaa 79 mitir, halka balliciisuna uu yahay 150 mitir. goobtan oo ah barta calaamadaysa soodinta labaad ee u dhaxaysa dalalka Brazil iyo Argentina. 5 xuduudda dalalka Hungary, Slovakia iyo Austria. halkani waa bar soodin oo ka dhaxaysa 3 dal, waxaa loo yaqaanaa 3 laab. adduunka waxaa ka jira 170 soodin oo sidaan oo kale ah. midkood wuxuu ku yaalaa bartamaha qaaradda Yurub. soodintan ayaa u eg kuraasta nasiinada ee aan cidna gaarka u lahayn, laakiin dhab ahaantii waa xadka 3 geesoodka ah ee u dhaxeeya Austria, Hungary iyo Slovakia. dabcan maanta 3duba waxay ka mid yihiin aagga loo yaqaano Shanghai ee aan lahayn xuduudda cayiman. dhanka kale, 3dan xuduudood waxaa ku hareeraysan taalooyin xusuusinaya dhacdooyin kala duwan oo taariikhi ah oo wadan walba u gaar ah. waa meel ay dadku uga nastaan buuqa iyo sawaxanka ka jira magaalooyinkooda. 6 soodinta dalalka Spain iyo Portugal. marka la soo koobo, waxaan aragnay xuduudihii ugu yaabka badnaa iyo xitaa kuwii ugu quruxda badnaa qaarkood. haddaba asxaabay, nala daawada xadkan oo ah kan ugu qosolka badan. xadka u dhaxeeya dalalka Spain iyo Portugal waxaa isku xira mashiinada ku shaqeeya korontada ee loo yaqaano funifia ama carabatul qidaar ee kor mara. dadka doonaya
in ay ka gudbaan xadka labadan dal ayaa ka kala raaca magaalooyinka San Luca di Guardiana ee dalka Spain iyo magaalada Alcotem ee dalka Portugal. 7. Xadka u dhexeeya dalalka Malaysia iyo Indonesia. Daawadayaal, soodinta u dhaxaysa dalalka Indonesia iyo Malaysia waxay ka kooban tahay dhulka kala qaybiya labada dal ee ku yaala jasiiradda Borneo oo lagu daray xuduudaha kale ee badda ee marinada Malacca, Celebes iyo badda koonfurta Shiinaha. Si kastaba ha noqotee, soodinta u dhaxaysa labadan dal ayaan aad u kala cadayn ilaa iyo dhowr sano ka hor. Dalalka Malaysia iyo Indonesia ayaa 1975 bilaabay xal u helidda khadka kala qaybiya labadooda dal, balse waxay heshiis kala saxiixdeen oo ay ku soo afjareen khilaafkaas 2006. Khilaafka labada dal ee dhanka xadka ayaa soo jiitamahayay wax ka badan 31 sano. Daawada weli ma ka gudubtay mid ka mid ah xuduudahan aan kor ku soo xusnay? Fadlan noogu sheeg commentiga. Xasuusnow inaad asxaabtaada la wadaagto videoga oo aad channelka subscribe saarto haddii aad nagu cusub tahay. dhammaantiin waan idin mahadcelinaynaa sida aad noogu xirantiin. waa mahadsantiin.